بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا كورس كلو يقانو Fundamentals of Linux Operating System waa mid ka mid ah runtii operating system-yada ugu qiimaha iyo qaayahaba badan marka laga hadlayo operating system-yada Windows-ka marka loo barbar dhigana waxyaabo badan buu kaga duwan yahay runtii waa course waqtigiisa aan oran karo uu soo beegmay ugu horeyn waxaan ka hadlaynaa markaasi haddii Ilaahay yiraahdo inii soo geysiinayna take your note course-kan bilow ilaa iyo dhammaad waa manual waxa la isticmaalaya waxa weeyaan waa wax slides oo bixinayna ma jirto wax PowerPoint isa wax PDF wax maxaa loo yaqaanaa buugaaga waxaan bixinaynaa casharo gebigooduba practical ah la qabanay gacanta laga qabanayo marka ka hor intaan gacanta laga qaban waa inaad soo diyaarsataa buugaagii stationery-ga kugu dhow tag buug yar oo qurux badan oo takeable ah oo ma la yiraahdo book light oo fudud soo qaado kadibna step kasto sameynayno waa inaad qorataa kadib aad dib u practice garaysaa marka that's why aan ku ogeysiinayo ku leeyahay take your notebook buugaaga soo qaado buugaaga markaad soo qaadatid ayaad halkan ka sii wadi kartaa casharada waxaan ku baranaynaa outline-kan waxaan baranaynaa haddii Ilaahay yiraahdo 7 cutub oo halkan 6 cutub aan yiraahdo labaan isku daray 6 cutub oo halkan noo yaala cutubka koobaad waxaan ku baranaynaa ama majuulka koobaad waxaan ku baranaynaa adiga iyo Linux baan skiin baraya installation-kii baan sameynaya computer Linux aynu computerkeena ka dhex sameynaynaa software packages iyo waxyaabaha ku jira inuu baranaynaa inta markaan barano ee computerkii aan soo dhisano ee uu computer noqdo computerkaaga ka dul dhisan hadama uma baahnin inaan operating system suuqa tagno inuu Linux soo download garayno inuu computer ku shubno computerkaagan aad adiga daawanaysid ama guriga adiga ku yaala ayaad ka dhex sameynaysaa computer kale oo Linux sidee suuragal ku tahay waad arki doontaa cutubka labaad waxaan ku baranaynaa waxa loo yaqaan working with directories-yada sida loo sameeyo folders loo sameeyo sida loo delete gareeyo folder sida loo qaado meel kale loo geeyo iyadoo waxaan isticmaalaynaa 90% waxaan isticmaalaynaa waa practical theory ma jiro faylka saas loo qaado halkaas laga qaaday saas halkaas la geeyo waxaas ma jirto waa learning by doing ayaa la yiraahdaa course-kan waana la baranayaa waxna waa la qabanayaa 95% waxa weey waa practical slides waxaan bixinayaa waa casharka ugu horeeya iyo laba mar oo laba sawir oo kaliya ta ku sharxi doono wax dambe ma jiraan waxaan sameeynaya waa manual lab baan sameeynaya adna labkaas waxaan ka rabaa inaad sidiisa ila qaadid working directories working files and file contents sida loo sameeyo failasha file waxa laga wadaa wax lagu qoro sida loo create gareeyo file-ka contentskiisa loo eego wax looga bedelo loo delete gareeyo qayb lagu soo daro qayb kale laga delete gareeyo xagga sare la akhriyo xagga hoose la akhriyo adoo isticmaalaya command line Linux file structure ahaan Linux folderadu ka kooban yahay structure ahaan wuxuu sidoo yahay bootkiisa maxaa loo yaqaan root directory-giisa directory-da user-kiisa password-da meel ay ku jiraan waxa soo dhan halkan aad ku arki doonto system information baa isna jira oo noqonaya Linux-kaaga sidaad ula socon lahayd size-kiisu intuu yahay RAM-kiisa inta laga isticmaalay percentage-ka CPU la isticmaalayo kala isticmaalaya hard disk-igu totalka ma waxba maqan sidee failasha process gareysmaya ee qaarkood processing-kiidu badan yihiin loo minimize gareeyaa halkan aynu ku jeexjeexi doonaa waxay noogu dambeyn doonaa dhinaca iyo network-ga Linux waa computer dhameystiran baan idhiyo serverada adduunka oo dhan ay ku iyo mainframe-yada adduunka oo dhan lagu aamino waxa weeyaan sida network-ga loogu soo xidho by the way network-gu ku xidhay laakiin waxaan rabnaa command-ada network-ga iyo troubleshooting-kooda by the way waxa troubleshooting laga sameeyo marka 6 daayira cutub oo gebigooduba manual ah ayaan ku taabsin doonaa insha Allah ugu horeyn aan ku horeeyo marka Linux oo maxaa tahay adiga iyo Linux maanta isku sii keen horeysa Linux sida magac ku sheegay waa operating system waxa weeyaan waa system sida computerada ku hay ku shaqeeyaan oo sida Windows ka kala Windows-ku Microsoft iskala Microsoft operating system ayaa ku jira leeyahay oo Windows waa magaciisu waa Windows
ayaa la leeyahay. haddaba Linux-kana isagana waxa weeye waa sidaasi lamida. Linux waxa la yiraahdaa waa kernel. Kernel waxa weeyaan waa shayga u dhaxeeya hardware-ka iyo software-ka labadoodaas isfahansiinaya. marka kernels baan leenahay are programs, waa programyo that talk directly to the hardware, si toos ula hadlaya hardware. waxaanu manage gareynayaa resourceska as well as processes, sidoo kale processyadiisa ayuu ka shaqaysiinaya. marka kernelku waa program baynu leenahay, waa programs isagu. programyadaasi oo uu yahay Linux waxa weeyaan waa shay operationkii loo baahnaa iyo hardware-kii u dhaxaynaya labadoodan isfahansiinaya. inaad computer soo qaadatid oo aad programmi ku shito ku shaqaysatid waa interface-ka kuu saamaxaya ee labadaas kuga ka xidhaya. marka taariikh dheer buu soo maray oo ka sheekayn mayno. Linux iyo Unix waxa weeyaan laba nin oo Linux iyo Unix ka asaasay way kala yihiin. marka taariikh dheer buu soo maray. linkii hoose aan idin dhigi doonaa oo idin ka sii akhri doontaan. waxaan baranaynaa advantage of the Linux. Linux haddaan baranayno maxaynu horta Linux u faa'iido leeyahay. horta waa open source. open source waxa laga wadaa qof kasta wuxuu doono ku soo darsan karaa. oo hadduu qof kasta wax kasta ku soo darsan karo ka Mareykan jooga hadduu wax ku soo daro anigu miyaanan wixii arkaynin? maya, adigu Linux operating system kaagan waxaad adigu u baahan tahay ayaad manipulation ku samayn kartaa, ayaad bedbedeli kartaa, wax ku darsan kartaa. waa security antivirus lagu mashbo. antivirus lagu mashbo antivirus ma qaato. oo caagadeena halkan baasha inoo taala maxay tahay? waa astaantiis watan waa secure ma leenahay laguma shubo. Linux wuxuu wataa operating systemkiisa virus ma galo. waa free, qof kasta download garaysan kara. waa lightweight, space fara badan ma qaato. 5 GB baan jecel karim kale ku shaqaysanayna aynu ku programka ku samayn doono, aynu steady ku samayn doono. waa stable oo ma crash garoobo. performance-kiisu waa fiican yahay, flexible, software updates buu sameeyaa and much more. halkeen ka sii akhriyaa casharadan iyo wixii la xidhiidha halkan. waxaad ka sii xiriiraysaa java.t.com ayaad kala xiriiri doontaa. haddii ilaahay halkan aad ka sii akhrisan doontaa. midda kale casharo badan baa halkan ku jira. casharada badankoodu halkan ayaad reference ahaan ugu aadi kartaa. marka haddaad waxaad hayn samayno laabkan samayno wax saayida dadka u baahatid halkan aad ka sii raacanaysaa insha Allah. maxaynu Linux ku doorbidnay? Linux horta I hope macallimiin tira yar oo Soomaaliya horta kooraska sharaxa. ajaanib u badnaadaan laakiin wax badan oo firiina waa la helaa. laakiin qofka bili aadankiisa uga baqdaa. I don't know, aniga ba kamid ah 13 sanadood ka hor baan Linux ka rabay inaan barto laakiin ma baran kari waay. oo muxuu ahaa Linux wax adag baa la iga dhigay. operating ma hayno, programkiisa ma hayno, virtualization iyo waxyaabo badan oo soo jiray oo gadaalna aan ka bartay ayaa aniga qufladiiga jabiyay. yaan hadalka ku raagin. serveriskaas adduunka ku jira ma Linux bay isticmaalaan mise Windows bay isticmaalaan? sawirkan ay noo saaraya. waxaan ka soo qaadanay Lambo qolada la yiraahdo LIMP aan yiraahdo LIMP ayaa statistics ay sameeyeen. waxay leeyihiin 64% Linux bay adduunka kombiyuutaradooda serveradu isticmaalaan. Windows wuxuu isticmaalaa 20. operating systemyada kale ee iyaguna jira ee ayna qaarkood aad u aqoonin iyaguna waxay kala isticmaalaan midiba wax yar buu isticmaala. marka meesha 60% laga isticmaalayo bari ka maalin industry-ga aad ka shaqeyn doontid ama aad ka shaqeysid Linux operating system ku shaqeeyaa waa inaad maanta aad u sii diyaar garowdo. marka kaasi ayaad sii baranaysaa. Linux-ku operating systemyadiisu version-ay kala leeyihiin. version-ayaan odhani distributions bay iyagu yiraahdaan. distribution muxuu yahay? Linux wuu wada yahay laakiin isaga ayaa laamo kala duwan buu sameeyaa. qaybo kala leeyahay. waxa uu leeyahay qaybihiisaasi Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, magacyadaas uu kala leeyahay aad u fara badan. marka waxaan u baahanahay keebaynu inagu door bidi doonaa. ka ugu badan baan door bidi doonaa Ubuntu 3.39 ayuu suuqa ka yahay oo yacni Linux-yada maxaa la yiraahdaa software ahaan uu ugu jiraa systemyada adduunka la isticmaalo. oo systemyada la isticmaalo ma server unba oo server ma maya
kombiyuutaradan linux aynu naqaano ee maxaa loo yaqaanaa systemyadeena maamula marka laga tago embedded systemska adduunyada waxaa la isticmaalo system ha noqdo systemyada guriga aad ku isticmaashid maxaa loo yaqaanaa laptopyada qaybo ka mid a oo androidku ka mid yahay linux baa gadaal kaga samaysan oo uu ku shaqeeya operating systemkiisu yahay ha ahaado linux ha ahaado maxaa loo yaqaanaa android laakiin xagga dambe waa linux anteenooyinka hadday yihiin waa linux systemyo fara badan oo adduunka lagu isticmaalo shayga keliya tee la isku halayn karaa waa wada linux operating system markaasi xagga dambe ayuu kaga jiraa marka waa ka rangaraynaya keenaya inuu stable noqdo waa adiga arkayba mobilada qaarkood imka baryaan daba soo baxay windows baa ku jira laakiin linux baa iyaguna halkiisa ku jira badankooda 33.9 ayuu ka yahay suuqa marka la eego kaasaan door bidaynaa markaas waan qaadan karaynay Red Hat waan qaadan karaynay Fedora waan qaadan karaynay Zuzu laakiin waxaan door bidaynaa ka loogu badan yahay that's why markaasi kaan u qaadanay intaa wixii dheer macalinka halkan kala soo xidhiidhaynaa macalinka magaciisu waa Khadir Axmed Muuse Facebook page-kiisu waa kan halkan ayaad ka navigate garayn doontaa follow gare start chatting sameeyo waxaad su'aalo uga baahatay soo weydii wixii tala iyo tusaale ah ayaynu halkan ku bixinaa soo dhawaada